بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan daawadayaal taariikhda caawa waa 27 bishii 7 2023 halkaan nagala socotaan oo barta Facebook ee YouTube-ka Calas 24 boos qodobada wararka caalamkooda ugu weyn waxa kamid ah shir madaxda Afrika oo uga furmay maanta dalka Russia caasimadiisa labaad madaxweyne Putin oo madaxda Afrika ka farxiyay wasiirka gaashaaniga dowladda Russia Sergey Shoigu oo booqasho ku jooga dalka North Korea-aanka oo u dabaaldegaya sanad guuradii ka soo wareegtay 74aad ee xilligii la aasaasay Pyongyang ee xukuumaddaasba maxaa la tusay maanta uu la yaabay wasiirka gaashaaniga dowladda Russia dhowrtiskii military ee qabanqaabinayeen dowladda Russia ee China oo soo gabagaboobay ciidamada dowladda Russia oo soo bandhigay taangiyo nooca ugu dambeeyay casri iyo artillery ayagoo baxsanaya ayaan warka ku haynaa ciidamada Ukrainiyiinta oo jab xoogan loo geystay dowladda Mareykanka oo soo bandhigtay diyaarad drone oo la yiraahdo magaceeda MQ-9 oo wiigan gudihiisii dowladda Russia diyaaradaha dagaalka ay leedahay MiG Eliya Sookhay 34 iyo Sookhay 29 ay ku baacsadeen dalka Suuriya gudihiisa Mareykanku wuxuu ku andacoonay in diyaaradoodu ay maartay wax dhibaato ku hayn saldhigyada ciidamada Suuriya iyo kuwa Russia hase yeeshee ay gudanaysaa howlgal ay fulinisay kuwaas oo weerar ay ku qaaday ciidamada jamhadda hubeysan ee Islaamiyiinta ISIS wasaaradda gaashaaniga ayaa war ka soo saaray in diyaaradooda balaayo lagu buufiyay la garan waayay hase yeeshee Mareykanka waxay leeyihiin arrintaas waxay abuuri doontaa oo marka labaad ay dhacdadan sanadkan gudihiisii dagaal ka dhaxaloosma labada dhinac warkii oo faahfaahsan ayaan daawadayaan u gelin doonaa dowladiskii u dhaxeeyay dowladda Russia iyo China ayaa soo gabagabay habeenkii xalay ahaa kaasoo ka dhacay badweynta Atlantika iyo badda Iceland liiraado sidoo kale dowladda Russia waxay soo bandhigtay artillery casriga ah ee dagaalka ay soo gelisay sanadkan gudihiisii ama bartamihii bilahan hadda lagu jiro bishii 4 ilaa 5 iyo taangiga magaciisa T90 ee gurguurax ee warwareega sidoo kale taangigan oo casri ah oo baxsanaya taangiyadii reer galbeedka gubayana meelaha ku dhuumanayaan asagoo leh radar iyo qalab casri ah oo sheegaya meesha ay ku jiraan cadowga Ukrainiyiinta qalabka ay wataan inkastoo diyaaradda ay la yiraahdo shahiid ay burburisay dhammaan hubkii la siiyay dowladda Ukraine ay ku rogaal celinayeen ayagoo jab xun la gaarsiiyay Ukrainiyiinta weerarkii rogaal celintaana halkaas uu ku banjaray waxaa la sheegayaa reer galbeedka in hadda ay xaaladda ku xun tahay hub nooc walbana ay siiyeen laakiin waxaa laga horsugayaa diyaaradda dhawaan la siin doono Ukrainiyiinta oo la yiraahdo F-16 inkastoo Russiaanka ay wacad ku mareen in diyaaraddaas ay burburin doonaan gebigeedna meel walba la dhigo oo kamid ah gudaha Ukraine dhulka la simi doonaan haddii ay isku dayaan inay kasoo duusho diyaaraddaas F-16 dal kalena dalkaas dhulka lala simi doono dhammaantiis madaxweynaha dowladda Russia madaxweyne Putin ayaa Afrikaanka ugu baaqay oo yiri waxaan wada qaybsan doonaa si cadaalad ah ayaan u wada shaqayn doonaa waxaana aan u wada qaybsan doonaa aan ku wada dhaqmi doonaa haddii wuxuu yiri rabbigan uu raali ka noqdo waa suu luqadiisa ku sheegay madaxweynayaasha Afrika oo halkaas ay ka muuqdeen madaxweynaha dowladda Uganda Museveni madaxweynaha waxa fadhiyay Ghana madaxweynaha Kenya madaxweynaha waxa joogay dalka Ethiopia oo isaga waftiga ugu horeeyay ka mid ah yimid madaxweynayaasha goonigoonida oo la kulmay waxa kamid ah madaxweynaha Mauritania madaxweynaha waxa kamid ah Ethiopia madaxweynaha South Africa madaxweynaha Ghana Kantogo wuxuuna u ballan qaaday 6 dolo oo dowladaha Afrikaanka ka mid ah inuu siin doono sarreen lacag la'aan ah iyo fertilizer lacag la'aan ah wuxuu kaloo sheegay madaxweyne Putin in dowladaha Afrikaanka laga saacidin doono xagga waxbarashada tiknoolajiyadda xagga ciidamada maarta loo dhisin doono wuxuu yiri wax walbana waxaan ku qaybsan doonaa si cadaalad ah si reer galbeedku sameeyaan in 80% ay rartaan hantidiina 20% maarta ninkan yahay ama 10% dhexdiina ay ka abuuraan colaad waxaas looma baahna Afrika wuxuu yiri waa qaarad dahan oo qaniya waxaana ka shaqeynayaa buu yiri si Afrikaanku u midoobi lahaa xagga lacagta iyo dhaqaalaha si markaasna aan wax wada qabsano ama ugu soo biirin lahayn ururka maarta hadda dhawaan la sameeyay bangiga cusub ee BRICS daawada wasiirka gaashaaniga dowladda Russia Sergey Shoigu arrin mucjisa ay maanta la kulmay aan dul istaagaya maxay tahay arrinka maanta toole ka yaabisay Shoigu waxa la tusay gantaalo mamnuuc ka ah plastic ee dalka Russia gantaalada waxa la tusiyay sidoo kale kuwa nuclear ka xambaara diyaaradda drone-ka oo nooca Mareykanka sameeyay MQ-9 diyaaradda u eg baa la tusay oo Ruushku uu soo weliga sameyn ama dowladaha Europe ay haysan arrintan oo maartay markii ugu horeysay diyaaradda drone-ka maanta lagu arko carwadaas iyo taangiyo iyo hub kala noocyadiisa kala duwan oo casri ah
sidoo kale wasiirka gaashaandhigga dowladda Russia Sergey Shoigu waxaa la socday dhigiisa wasiirka gaashaandhigga dowladda North Korea oo isagu soo dhaweeyay hameen hore maantana waxaa maaragtay xafladda ku marti qaaday Kim Jong Un waa Kim Jong Un ka saddexaad oo cunugooda uu yahay aasaasihii jamhuuriyadda odagii aasaasay jamhuuriyaddan North Korea ay u dabaaldegayaan sanad guuradii 70 dhowr sano kasoo wareegtay ay u dabaaldegayaan North Korea waa wadan maaragtay xagga hubkiisa casriga sameeyey ilaa iyo haddana hubku nooc uu haysta aan la ogeyn macnaha teknolojiyadda iyo heerka gaarsiisan tahay laakiin maanta waxay soo bandhigeen diyaaradaha nooca ugu dambeeyey gantaalada badda maaragtay gujiska oo qaaradaha iskaga gudba oo maaragtay lagu qarxin karo wadda dhan lagu harqin karo inta madaxyada gumca nuclearka lagu xiro waxaa kale soo bandhigeen diyaarad drone oo casri ah oo reer galbeedka maanta saxaafadooda aad ay uga hadlayeen sida CNN-ka iyo ABC iyo Newska iyo NBC Newska sidoo kale waxay soo bandhigeen gantaalo lagu yaqaano oo nooca xambaara hubka sida baan wax u gumaada nuclearka daawadayaal North Korean carwadan maanta soo bandhigan waa markii ugu horeysay carwo noocaana hub noocaana isugu keenaan sidaa daraaddeed aad bay maaragtay ula yaabeen dowladihii reer galbeedka iyo madaxdii xataa raashiyaanka meesha booqday daawadayaal marka warkan ka soo yeeray maaragtay dowladda North Korea war farxad geliyey dowladaha maaragtay isku sheegay quwadda adduunka inay yihiin maaha halkaas maaragtay calaamasaarka ka dhacay maantay ilaa iyo xalay ilaa iyo caawa ilaa beri socon doona maalmahan dhan uu socon doono dabaaldegaas maaragtay guulihii ka gaareen dagaalkii dhex maray South Korea iyo maaragtay Mareykanka iyo dowladaha kale Japan oo isku dhinac ahaa adiga taariikh badan ayay halkaas iyo hidayo dhaqan ay leeyihiin lagu soo bandhigay xaflado badan dowlado badan oo caalamka ayaana ka qayb galay aan dowladaha reer galbeedka aan ahayn sidaa daraaddeed waxyaalo fara badan ayay halka kusoo bandhigeen madaxdii timid halkaas qaar shahaadooyin ama bilo sharaf ayuu guddoonsiiyey madaxweynuhu halkan nagala socotaan daawadayaal waa barta YouTube-ka Calas 24 Post waxaan u guda gelaynaa diyaaraddii droonka ahayd ee dowladda Mareykanka macluumaadkii soo bandhigtay maanta waxayna ku sheegtay Ruushka inuu wado daandaas iyo isku dhac dagaal waana markii labaad uu diyaaradayada kusoo ridayo dalka Russia meel ka baxsan diyaaradaha ku baxsanayo sidaa daraaddeed diyaaraddan waxay dul marisay gudaha dalka Syria waxayna sheegeen Mareykanku inay baxsanayeen ururka ISIS laakiin laba diyaaradood ayaa daandaansaday diyaaradda Sukhoi 34 iyo Sukhoi 29 ee miiga